kulan wacan daawade halkan waa janalka All Banaadir ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan kaga hadlayno maxaad ka ogtahay daawade heerka uu marayo khilaaf ka dhex taagan xubnaha ku midoobay madasha xisbiyada qaran ee dalka. 30kii bishii Oktoobar 2019 waxaa magaalada Muqdisho looga dhawaaqay madasha xisbiyada qaran ee dalka oo ay ku mideysan yihiin ku dhawaad 6 xisbi siyaasadeed. madashan xisbiyada ugu waaweyn ee ku jira waxaa ka mid ah xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran oo ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo labadoo soo maray madaxweynayaal. waxaa sidoo kale hogaanka madasha xisbiyada qaran loo doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa loo doortay Prof Maxamed Cabdi Gandi oo ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaanka madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in sababta loo asaasay madashan ay tahay in la abuuro jawi siyaasadeed oo loogu tartamo oo ku dhisan nidaam iyo is-ixtiraam si looga gudbo hanaanka 4.5 loona gaaro marxalad baahsan oo asaaskeedu yahay dadku inay isku raacaan aragti siyaasadeed. madashan xisbiyada ayaa waxaa ku jira xisbiyo ay ka mid yihiin Himilo Qaran, UPD, Ilays, MBB, Kulan iyo xisbiga nabadda. sidoo kale waxaa jira xisbiyo kale oo iska diiday inay ka qayb noqdaan madasha xisbiyada, waxaana laga xusi karaa xisbiga uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ee Wadajir. haddaba waa maxay sababta Cabdiraxmaan Shakuur u diiday ku biirista madasha xisbiyada qaran? siyaasigan Cabdiraxmaan Shakuur Warsame ayaa ka hadlay sababtii uu xisbiga Wadajir uga mid noqon waayay madasha xisbiyada qaran ee lagu dhisay Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sababta ku sheegay in markii hore ay soo jeediyeen in madasha aysan yeelan hogaan kaliyana ay samaysato xiriiriye, balse ay hadda yeelatay hogaamiye, taasina ay ku diideen sida hadalka uu dhigay. sidoo kale waxa uu sheegay in madasha ay kala mideysan yihiin in laga wada shaqeeyo sidii ay u dhici lahayd doorasho lagu qabto waqtiga oo u dhacda si xor iyo xalaala. aragtida xisbiga ayaa go'aansaday in aan hadda laga mid noqon doodaha madalada la xiriira. dadka isku aragti kama ahan hal hadaf ayaan wada leenahay in doorasho xilligeeda la qabto inna laga wada shaqeeyo, maadaama madasha ahayd madal dadka aysan hal xisbi la noqonayn. qof walba madaxtinimadiisa, damiciisa iyo howlihiisa uu leeyahay in laga wada shaqeeyo doorashada sidii ay ku dhici lahayd oo garoonka ciyaarta loo wada geli lahaa ayaa hadda noogu muhiimsan. maba aaminsanayn in hogaan la sameeyo, in xiriiriye la sameeyo ayaa ujeedkeenu ahaa, ayuu yiri Cabdiraxmaan Shakuur Warsame oo mar ka hadlayay midowga xisbiyadan qaran. wada tashiyo iyo kulamo joogto ah oo ay yeelanayeen madasha xisbiyada qaran ayaa intooda badan waxay ku dhaliileen hanaanka dawladda ay dalka u hogaaminayso iyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. dadaal dheer kadib hadda waxaa soo dhamaaday waayihii madasha xisbiyada qaran oo waxaa ka dhex taagan khilaaf xooggan oo sababay in xubno qaar ay ka baxaan xisbiyada ay kala hogaamiyaan mas'uuliyiinta ku mideysan madasha xisbiyada qaran. xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble waa hogaamiyaha xisbiga Ilays, qaybna ka ah madasha xisbiyada qaran. khilaafka Cosoble ayaa salka ku haya sida madasha ay mucaaradayso dawladda oo hadda hoos ay u dhigtay, isagoo sidoo kale aan qayb ka ahayn shirkii dhawaan madashu ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. xildhibaan Cabdiqaadir Cosoble waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu firfircoon ee ku jira madasha xisbiyada qaran. haddii siyaasigan uu xisbigiisa kala baxo madasha xisbiyada, waxay taa ka dhigan tahay inuu soo idlaaday waayihii xisbiyadan iyo majaxaabintii ay ugu talagaleen dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa xubinnimadii xisbiyada Himilo Qaran iyo UPD oo ay kala hogaamiyaan madaxweynayaashii 7 iyo 8 ee Soomaaliya soo maray Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iska casilay sanataro iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaanada iyo sanatarada ayaa barahooda xiriirka bulshada ku daabacay warqado ay ku cadeynayaan inay iska casileen xubnaha ay ka ahaayeen xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran, waxaana warqaduhu u muuqdaan kuwa isku qaab u qoran oo waxay ku kala duwan yihiin kaliya magaca xildhibaanka iyo taariikh ahaan xilliga ay soo baxday warqadaasi. Senator Muxiidiin Sheekh Cali Jaamac ayaa iska casilay xubinnimadii xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale Senator Cabdirasaaq Axmed Cali oo kamid ah xubnaha xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii ziyaada ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iska casilay mana cadeyn sababta keentay in uu iska casilo xubinnimadii xisbigaasi.
xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna iska casilay gudoomiye ku-xigeenka iyo xubinnimadii xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ma sheegin sababta keentay inuu isna iskaga casilo xubinta uu ka ahaa xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo isna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa iska casilay xubinnimadii xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale ma sheegin isna sababta keentay inuu isku casilo ama uu ka tagaba xubinnimada xisbiga Himilo Qaran xubnahan ayaa intooda badan waxay baarlamaanka Soomaaliya ku matalaan deegaanada maamulka Somaliland warar kale oo aynu helna ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay wadaan qorshe ah inay dhawaan ku dhawaaqaan xisbi ay ku mideysan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo ay uga qayb qaadanayaan doorashada soo aadan ee dhamaadka sanadkan 2020 iyo bilowga sanadka 2021 waxaana suurtagal ah in xubnahan iska casilay madasha xisbiyada qaran ay u xubsiibtaan xisbiga weyn oo ay dowladda soo wado shantii bishan March 2020 shir ka dhacay Turkiga waxaa lagu shaaciyay in hal xisbi siyaasadeed ay ku midoobeen dhammaan xisbiyada ku mideysan madasha xisbiyada qaran madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya oo ay ku midoobeen 6 xisbi siyaasadeed ayaa waxay warmutiyeed ay uga hadlayaan arrimo dhowr ah ka soo saareen dhawaan shir ay ku yeesheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga warmutiyeedka oo ka koobnaa 2 bog ayaa waxay ku sheegeen in shirkooda ay uga hadleen caqabadaha amni iyo midda siyaasadeed ee xilligan dalka ka taagan sidii xal looga gaari lahaa kuwaasi oo wiiqi kara dowladnimada muddada la soo dhisayay warmutiyeedka ayaa lagu sheegay kadib wadatashi iyo talooyin badan in ay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed si arrintaas loo gaaro warmutiyeedka ayaa lagu xusay in la magacaabay guddi farsamo oo howlahan ku soo dhameystira muddo dhan 45 cisho gudahood madasha xisbiyada qaran ayaa dalbaday in doorashada dalka ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay oo aysan aqbali doonin waqti kororsi sidoo kale waxay dalbadeen in si shuruud la'aan ah ay isugu imaadaan dhammaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya si looga tashado doorashada iyo marxaladaha uu dalku marayo madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in ciidankii iyo dhaqaalihii loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab loo adeegsado burburinta dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan madal dib u heshiisiineed ugu dambeyntii madasha ayaa sheegtay inay ka tacsiyeynayso isla markaasna ay ka xun tahay dayac ay sheegtay in loo geysay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose kuwaas oo dhawaan qasaaro xoog leh u geysteen kooxda al-shabaab kadib markii laga qabsaday xeradii ay ku sugnaayeen lagana qaatay gaadiid iyo saarad ciidan dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaar ayaa su'aal ka keenay suurtagalnimada ah in hal xisbi iyo hal musharax ay ku midoobaan madasha xisbiyada qaran maadaama madashaas ay ku wada jiraan 2 madaxweyne oo dalkan soo maray suurtagalna ay tahay in mar kale tartan adag oo dhanka doorashada ah ay isku wajahaan balse arrintaas waxaa si la yaab leh uga falceliyay Xasan Sheekh Maxamuud oo soo noqday madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna gudoomiyaha xisbiga UPD ayaa ka hadlay ujeedada ka dambeysa in madasha xisbiyada qaran ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed madashu iyadoo ka ambaqaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimadu xisbiyada ay ka kooban tahay madashu waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen madasha Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi ka hadlaya ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa waxa uu ku yiri mideynta xogaga horusocodka ah ee siyaasadda Soomaaliya waxa ay laga marmaan u tahay xasiloonida iyo barwaaqada Soomaaliya go'aanka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobayaan hal xisbi siyaasadeed waxay taariikh cusub u tahay Soomaaliya waxayna anfacaysaa jiilka hadda jira iyo kan mustaqbalka ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh ayaa dhinaca kale u digay dhinacyada shisheeye ee xiiseynaya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya kuwa juqraafi siyaasadeed ahaan xiiseeya Soomaaliya waa inaysan dhaawicin qulubta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aysan beerin wax mustaqbalka horin kara dagaal aysan cidna dan ugu jirin waa inay damqin dhaawacyada boogihii hore ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka ay madasha xisbiyadu ku noqonayaan hal xisbi ayaa yimid kadib markii shir socday 5 maalmood ee ku yeesheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga khilaafka ka dhex taagan madasha xisbiyada qaran ayaa sababi kara in dhammaan uu babbar ku yimaado qorshayaashii ay markii hore ku wada heshiiyeen xisbidan siyaasadeed ka jira dalka guud ahaan daawade intaas aan jeclayn in ku soo afmeero warbixintii gaarka ahayd aan kaga hadlaynay maxaad ka ogtahay heerka uu marayo
khilaafka ka dhex taagan xubnaha ku midoobay madasha xisbiyada qaran ee dalka. haddaba fikirkaaga iyo saad u aragto warbixintan inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.